وهجاك مركب دعوة ريال المصيب دجال برنامج كقبرها أصلي ولي بقضاء يا مربع دي كوجس وجدبني دولة السعودية وحا أي كواد كيستي ممنوع عدي أهيد إن سمع لها مسجد كأن لقوا مقلين ميل فوق مسؤولية الدولة السعودية العربية وحا يسوى صارين قوانا أي كواد كيسر يعني قارهان وزارة الدين kadib markii ay soo gudbiyeen dadka waalidiinta ah ee degan agagaarka masjidka barakaysan ee xaramka iyagoo sidoo kalena dadkaasi wasaaradda diinta ee dalkaasi Sacuudiga u gudbiyay in sameecaduhu marka ay baahinayaan arrimaha dhanka diinta ku soo kale ay caruurtooda hurdada ay ka haado taa beddelkeeda wasaaraddu ay soo saartay amar ah in 3 meelood hal meel kaliya laga sii deyn karo codadka masaajidada si aanay saameyn ugu yeelanin dadka degan hareeraha masjidka arintan waxaa markiiba ay la qurantay dalaaceen ay soo gudbinayaan qaybaha kala duwan ee baraha bulshada dadka adeegsada oo muujinaya in Sacuudigu uu markaan ku sii taraxtagayo arrimaha dhanka diinta isla markaana uu ka sii fogaanayo dhaqanadii suubanaa ee diinta Islaamka Sacuudiga ayaa tan iyo markii ay soo ifbaxday in محمد بن سلمان لو قرشينيو in lagu wareejiyo dhaxaltooyada ama hogaanka dalka Sacuudigu waxa uu bilaabay wax lagu yeero siyaasadaha furfuran iyo waliba dimuqraadiga taas oo horseeday in halka ay ka baxdo dhaqankii soo jireenka ahaa ee Sacuudiga inta badan lagu wada yaqaan وهجاك كيا waxa ay soo saartay toddobaadkan in ay markale ku cilmayso digniinta ku socota dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee duulimaadada u soo qaadan jiray dhanka Soomaaliya iyadoo Kenya ay hore u ogoleed adeegyada caafimaadka iyo waliba duulimaadada ku salaysan Kenya waxay hore u ogolaatay in hay'adaha qaramada midoobay ee ku shaqada leh arrimaha bini'aadanimada iyo waliba adeegyada caafimaadka duulimaadadooda inay u soo adeegsan karaan Soomaaliya laakiin taa isbeddelkeeda laakiin taa wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya qoraal ka soo baxay waxa lagu sheegay in si qaldan loo adeegsaday duulimaadadii Soomaaliya ka soo degayay oo ay qayb ka tahay arrimaha siyaasadda iyo waxa ay dhawaan ay si buuxda u sheegtay in ay hakisay duulimaadadii kaga imaanayay Soomaaliya isla markaana Kenya ay muujisay in xilligan aanay diyaar u ahayn qaabilaad ay ku samayso diyaaradaha ka soo kicitama Soomaaliya ee Kenya ka dega ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxay u sheegtay amaba ay qoraalkeeda ku muujisay hay'adaha samafalku in marka hore ay soo gudbiyaan rakaabka ay doonayaan in ay qaadaan si arrimaha siyaasadda iyo waliba bini'aadanimada loo kala saaro qaybta dambe ee barnaamijka qubaraha asal TV ay la socotaan daawadayaal balmarkan qormada sheekada balmarkan aan si gaar ah la socono arrinta sheekada ku saabsan Alien Kramer waa 106 sano jir waxaana sidoo kale u muuqataa mid samaysay wax soo saarkii abid ugu badneed ee dhanka nolosheeda maalin walba waxa ay sheeko ay ka soo qortaa xarunta lagu daryeelo dadka waaweyn ee ku taal Sydney caasimadda Australia iyada oo daabacday buug kana mid noqday markaasi tartanka sare ee sawirada dalka Australia lagu qabtay fanaanada Kramer oo dibadda ku noolayd waxa ay markaa fanaanada Kramer ee dibadda ku noolayd waxa ay magaalada Sydney ay ku soo laabatay markii ay da'deedu ay ahayd 9 sano waxaana intaasi ka dambeysay waxa ay gudaha gashay iyadoo fanaaniinta ka caawiso haddii ay muuqaalada tayo leh ay markaas u soo saari lahaayeen iyadoo uga faa'iideynaysay aqoonta ay leedahay isla markaana dalmareenkii ay soo noqotay dunidu wixii ay ka soo aruursay ee khibrada ah in ay soo bandhigto Kramer weli waxay u cayaaraysaa si la yaab leh iyada oo soo bandhigaysa xirfad qofka ciyaar oo la yaab leh waxaana inta badanba ay qofka ciyaarku ay u adeegsataa qaarka hore ee markaasi sanadihii ugu dambeeyay waxay sidoo kale ahayd mid markaasi u jajaban tababarada qofka ciyaarka oo waliba hablaha yaryar ee hadda soo baxaya ay u muujinayso in ay ka xirfad dhowdahay amaba ay kaga wanaagsan tahay xagga ciyaarta qofka ciyaarka laakiin mar la fariistay amaba ay la hadleen warbaahintu waxa ay ka gaabsatay in aanay daneenin in loogu yeero erayada ayay iyo waliba waxyaabaha muujinaya in da ay ku jirto hadda waa 106 sano jir weeye haddana waxay sidoo kale muujinaysaa in wali ay tahay qof awood u leh
qof weli awood u leh gabar 20 jir ah hawsha ay qaban lahayd in weli ay qaban karto hadday noqoto sida ciyaartaan qofka ciyaarka Alan Kramer iyadoo hadlaysa waxa ay sheegtay laba bandhig faneed oo lagu qabtay Adelaide iyo weliba Brisbane in iyadoo jilinkana ay lahayd laba buwaagna ay ka qortay isla intii lagu guda jiray diyaarinta bandhig faneedkaasi waxay muujinaysaa in khibradeeda dhanka qofka ciyaarka uu yahay heer tagay amaba sareeya Alan Kramer qodobkeeda ayaa ugu dambeeyay barnaamijka khubaraha asal TV intaynu dib ugu kulmi doono toddobaadka xiga mid lamida barnaamijkan waa aadan xuseen oo idin leh nabadgelyo